السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا حسوس قرد اختار الكود أيدين قرتو أيدين ديارسو دكتور هباق بوبال إكسو ديارسو مقالة هرقيسا. مشكلة أقوين ضدك هايسة أما دلنجرة أدونك هايسة وحويان إناني قرانين قيمها النفتو ذا. haddaanad garanan qiimaha naftaada wadooyinka nolosha ayaad ku lumaysaa oo aanad wadada saxda aanad helaynin haddaanad garanayn qiimaha naftaada waxaad la saaxiibaysaa asxaab kasta asxaab daalimiina qaar axmaqiina qaar nolosha ka dhacay haddaanad qiimaha naftaada runta aanad garanayn waxaad galaysaa jaamacad aan ku qalmin tacliim aan ku qalmin oo hankaaga u qalmin ayaad baranaysaa haddaanad qiimaha naftaada aanad garanaynin waqtigaaga waxaad ku luminaysaa iyo aqligaaga waxaad ku luminaysaa muqaaxiyo adigoo saacado fara badan fadhiya oo hadal bilaa macno ah ku hadlaya haddaanad qiimaha naftaada aanad garanayninna waxaad siinaysaa wadnahaaga oo waxaad ku aaminaysaa wadnahaaga dad aana u qalmin oo qiimihiisa aana garanayn oo aana ixtiraamaynin haddaanad qiimaha naftaadana aanad garanaynin wadnahaaga waxaad ku aaminaysaa ad siinaysaa dad aana u qalmin oo qiimihiisa aana garanaynin markaasaa ad moodaysaa inay ku jecel yihiin runtiina maaha sida taangiga biyaha ee daloola biyuhu ay uga baxaan ee biyaha looga afrago ayuu wadnahaagana dalool ay ku samaynayaan oo xikmadda iyo xoogga iyo caqliga iyo naxariista iyo jacaylkaba ay ka saarayaan oo hadhowtan adigii taangiga madhanba isku mid ah noqonaysaan haddaanad qiimaha naftaada aanad garanaynin waxaad guursanaysaa guur aana ku qalmin ad ogtahay inaad ku khasaaraysid laakiin qiimahaaga ayaanad garanaynin markaasaad ku dhaqaaqaysaa haddaanad qiimaha naftaada aanad garanaynin cuntada doontid baad cunaysaa miisaankaaga kordhaya caafimaadkaagana dankama yeelanaysid haddaanad qiimaha naftaada aanad garanaynin oo aanad aaminsanayn inaad adduunka aad bedeli kartid adigoo jilicsan oo baqaya ayaad badda isku tuuraysaa oo magafaha isu dhiibaysaa waxyaabahaasoo dhan waxay ku soo dhaceen niyadayda maalintii taariikhdu ahayd 4 bishii 4 2016 anigoo axmed eegayo intuu suuxay anarbadii aan siiyey axmed waa inaan dhalinyaro ah oo 19 jira axmed waxa weeyaan dhalinyarada doortay inay maalin kasta ay qayilaan oo maalin kasta baakeed sigaar ay dhameeyaan axmed wuxuu doortay inuu la saaxiibo asxaab nolosha ka dhacday axmed wuxuu doortay inuu tacabka hooyadii iyo aabihii uu khasaaro tacliinta uu ka haro axmed wuxuu doortay inuu ku fakaro tahriibka uu tahriibku noqdo hamigiisa nolosha axmed waxa weeyaan sida dhalinyaro fara badan oo dalkeena ku nool oo ana qiimaha naftooda aana garanaynin hadduu axmed uu garan lahaa qiimaha naftiisa hadduu og yahay axmed inuu yahay makhluuqa ugu qaalisan ilaahay qacantiisa uu ku abuuray hadduu og yahay inuu ilaahay u sujuudiyay makhluuqaad koran iyo malaa'igtoo dhan hadduu og yahay inuu qurux kasta iyo wax kastoo nool iyo wax kastoo aana noolayn oo adduunkan ku nool ina daraadiisa loo abuuray hadduu axmed taasuun og yahay hadduu qiimaha naftiisa og yahay raqiiskumuu iibin lahayn maalinta ay taariikhdu ahayd bishii 4 May 1948 culamo geologiga cilmiga dhulka ayaa waxay imaadeen South Africa waxay imaadeen siday deeman uga baadhaan oo barigaas oo deemanka lagu sheegay inuu South Africa ka buuxo oo dagaalo badan iyo ajaanib badan ay u imaadeen say deemanka ay u baadhaan waxa kamid ahaa dadka la socday nin la yiraahdo Yoki wuxuu ahaa caalim buu ahaa ku takhasusay cilmiga dhulka oo buugaag badan qoray Yoki maalin kasta isagii culimadaas intay soo kacaan 5 subaxnimo ayaa ilaa 8 habeenimo ay joogi jireen meelaha dhagaxu ku badan yahay ay qodi jireen dhagaxaas ay ka baari jireen deeman laakiin muddo badan iyagoo hawshaas ku jiray oo deemankii waayay ayaa weynaya jireen maalin Yoki isagoo niyad jabsan oo ka imanaya meeshii uu deemanka ka baadhayay oo ku socda hoteelkiisa ayaa wadadii wuxuu ku arkay inay yaro Afrikaana oo da'diisu tahay 8 ilaa 9 jir dhar jeexjeexan gashan oo wadada taagan wadada markuu taagnaa inaan ka yar wuxuu qacantiisa ku hayay dhagax weyn oo dhalaalayo oo qurux badan oo ku ciyaarayay Yoki baa istaagay oo inaan ka yar dhagaxu gacanta ku hayay ayuu buudaawada markaas hadhowtan uu soo dhawaaday markuu u soo dhawaadaba indhihiisu aabisuu kala fura isagoo yaabsan hadhowta intuu ilmihi yaro inuu wuxuu ku yidhi dhagaxan yaraad ku ciyaaraysid ma isiin kartaa waxaan ku siinayaa intaasoo lacaga inankii yaraayo faqiirka miskiinka oo aana garanayninba waxay lacagtu tahay oo laga yaabo weligiiba lacag inaanu gacantiisa ku qaban ayaa wuu diiday wuxuu yidhi kuma siinayo hadhowtana Yoki wuxuu ka soo saaray jeebadiisa nacnac buu ka soo saaray iyo shukulaato yar uu sii wuxuu ku yidhi haddaba nacnacan ma igu bedelaysaa dhagaxanada haysid inankii yarba intuu farxay nacnacii la booday markaasuu dhagaxii uu gacanta u ka saaray Yoki baa isagoo
isagoo yaabsan buu cararo hoteelkiisa ku noqday 14 jeer ayuu dhagaxii baadho mashiinkii uu hayay ku baadhay mar kastana isagoo aan rumaysnayn buu boodbooda isagoo faraxsan oo qaylinaya runtii iyo kii wuxuu helay deemanka adduunka ugu weynaay ee khaamka ah ee waqtigaas adduunka laga helay oo hadhow tira marka la jarjaro ee la hagaajiyo lagu iibin karo malaayiin doolaraad ilmaha yar muu garanaynin inuu qacantiisa ku hayo deemanka adduunka ugu weyn hadduu og yahay qiimaha wuxuu qacantiisa ku hayay xaalkiisu isbedeli lahaa iyo xaalka reerkiisa iyo xaaladda xaafadiisa iyo laga yaabaa dalkiisa oo dhan waa laga yaabaa inaad marmarka qaarkood inaad wax qacanta aad ku haysid aanad qiimihiisa aanad garanayn aad ku bedelatid wax raqiisa adiguna haddaad maanta idagaysanaysid ha noqonin sida inankan yare deemankii qaaliga ku bedeshay xabad yaro nacnaca noloshaadu waa qaali ha ku bedelanin niyad-jab iyo cadho noloshaadu waa qaali ha ku bedelanin qaadi sigaar noloshaadu waa qaali ha ku bedelanin tahriib noloshaadu waa qaali ha ku bedelanin fashal iyo tacliin aad ka tagaysay noloshaadu waa qaaliye waxaad siisaa waxa u qalma. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.